haddaysan guur ku sugnayn ama aan la qabin in badan waxay la mid tahay waxaan labis lahayn. wiilkuna saasoo kaluu la mid yahay sida ilaahay tilmaamaya hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna, waayo waad asturaysaan idinkuna way idin asturayaan. gabdhaha iyo wiilasha isqaba mid kasta ka kale labis buu u yahay. haddaadan xaas lahayn yaa ku asturaya? gabadhu mar allaala marka la guursado sababta loo yiri nikaaxa ha la iclaamiyo oo kor ha loo qaado oo masaajidada ha la geeyo oo nolol sharxan ha lagu sharxo meelaha aroosku ka dhacayo maxay tahay? kii soo maraba inuu dhaho maxaa ka jira meesha? guur baa ka jira, yaa la guursanayaa heblaayo, waa khalaas way dhammaatay, waa muxsinad. qof kale oo u hanqaltaagayayi ma jiro. inta badan way badbaadaan gabdhaha guurka ku jira, inta badan ma badbaadaan kuwa aan weli guursanin. kuwa aan weli guursanin inta badan ma badbaadaan. tagsiilaha mar allaala markay inan raacdo cabbaar markuu socodsiiyo salaamo kadib su-aasha ugu horaysa weydiinaya maxay taan taqaanin? ma lagu qabaa? haa hadday dhahdo in badan buu ka gaabsanayaa. maya markay dhahdana waxaa bilaabanaya hasaabo, waxaa bilaabanaya hadal, waxaa bilaabanaya taleefon la kala qaato, waxaa bilaabanaya arrimooyin badan oo noocaasa. waayo gabadhani ma aha gabar xasilan, ma aha mid ilaalsan. qur'aanka mararka gobol ka mida walmuxsanaat min annisaa yaa loola jeedaa muxsanaadka waa dumar rag leh, waa xaafis buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala. idan gabadha markay xijaaban tahay waa ilaalsan tahay, markay ahludiin tahay way ilaalsan tahay, markay masjidka fadhiiso way ilaalsan tahay. sidoo kale markay xaas tahay oo ay reeri leedahayna in badan bay badbaadaa. wax badan ayaa laga yaabaa inay badbaado. sidaa darteed walaalayaal xaaladaana aan aad iyo aad u fiirino guurka inuu qiimaha faraha badan leeyahay, inaan aad iyo aad ugu dadaalno. waa shay muhiim ah. ilaahay kitaabkiisana in badan buu ku ammaanay in la guursado. in badan dadka guurka ku jira wiilal iyo gabdhana in badan bay aad iyo aad u badbaadaa. dhallinyarada waxaan in badan dhihi lahaa guurka aad iyo aad ugu dadaal. sanadkan iyo qarnigan aanu ku jirno waxaa badan dhallinyaro, waxaa fara badan waxyaabo badan iyo hanti aan haysano, laakiin guurkaa yaraaday. waxaa adduunka soo maray jiil aan waxba haysanin laakiin guurku ku badnaa. waxaa adduunka soo maray jiil mar allaala markii ay guursanayeen aan shilinna haysanin walaalayaal. maantana markaad fiiriso ayagoo ilaahay dartii ula jeeday, cafaaf iyo dhowrsanaan ka rabay, maantana hanti iyo owlaad meel ay dhigaan markaa la la'yahay. waayo 3 qofood anaa cawn iyo kaalmow ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waxaa ka mid ahaa naakix iyo nin raba inuu guursado cafaafna ula jeedaa. sababtuu u guursanaya waa inuu dhowrsanaado, waa inuu edabdaradii akhlaaq xumida magaalada ka jirta alla ka badbaadiyo, inuu helo meel uu shahwaadkiisa ku guto, inuu helo diintiisii bar ka mida inay ilaalsanaato. qofka noocaas ilaahay dayaci maayo subxaana wa tacaala. qofka noocaasi ilaahay ma dayacayo. rabbi ayaa yidhi waankixu layaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa. ilaahay baa deeqaya subxaana wa tacaala. war isu guuriya xasaabayaasha. wiilka aan xaaska lahayn iyo gabadhaan xaasada la xaaska lahayn labada waa labada ugu badan ee adduunka fasahaadiya, waa labada ugu sharta badan, waa labada ugu dhibaatada badan. muxuu rasuulku u amray inay soomaan? muxuu rasuulku u amray inay soomaan hadday guursan waayaan? fisqi baa la diida, xumaan baa la diidaya, waxyaabo badan oo akhlaaq xumiya aadaab darro ah inay magaalada ka dhacdaa la diidaa iyo bulshada dhexdeeda. sidaa darteed walaalayaal waa in marka hore qalbiga aad gashataan. maxaan ku guursadaa? maxaan haystaa? maxaan siiyaa? maxaa inta la leeyahay dhibaato fara badan baa imaanaysa. maxaaba hala dhee haddii la ilaalsanaan lahaa waxbay ahaan lahayd. mana guursanayo, mana ku dadaalayo, mana soomaayo, indhihiisana ilaalin maayo. waxa la rabo maxay tahay marka? akhlaaq xumaa loo socdaa, edibdaraa loo socdaa. xaaladda noocaas aan iska ilaalino. saciid ibnu lmusayib gabadhiisii mar allaala markuu u guuriyo canugii ardayga ahaa ee masjidka nebiga wax ka baranayay, macalin 2 dirham baan haystaa buu yidhi. wax kale oo aan haysta ma laha. qaar baa wax u aruursan yihiina meel u yaalaan, laakiin ay ku dhoofaan bay rabaan soo maa. dhallinyarada agtarkooda 2 haystaa buu macalinkiisii wuu la hadlayaa.
kaalay soo dhowow halkaasaa la fadhiisiyaa loogu nikaaxiyey kitaabkaanu ku soo marnay waa loo mehriyey waan soonnaa buu dhahay maalintaa waa wareeray waa dooqay buu yidhi wiilkii la mehriyey sidaa darteed waxaan iloobayba soonkii mar allaala markaan salaada maqribkaa tukaday gabar baa ku mehersan meherkiina 2 dirham waa 2 dirham buu haystaa wax kaloo ka dhacaa ma laha aqal yaroo doqoshaa meesha ugu yaala sariir ma laha wax la dhigaa ma laha faynus baa u taala laakiin kutub cilmi badan baa meesha u yaala rabbi buu ku kalsoon yahay subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambeeyey maxaa dhacday saciid intuu ku fekeray say ku dhici kartaa nin xaas leh inuu keligii jiifto gabadhaadii oo xaasad ahna inay guriga kuu jiifto muxuu sameeyey soo labisuu yidhi jalbaabkeedii bay isku soo tuurtay waa la soo kaceeyey aabbaa soo kaceeyey albaabkaa loo soo garaacay waa kuma waa siciidaan garan waaye buu yidhi maskaxdayda waayo waa macallinkii dhammaa waa shiiqiisii gabadhiisii buu u wadaa albaabka markaan ka fura meeshuu taagan yahay alla maxaa dhacay xaaskaagaan kuu wadaa waa yaxyaxay buu yidhi xabad muufii saliid baan ku afuraayo meesha ii tiilay waxaa isdhahay gabadhii waxaa la yidhi gal calaa barakatillaah gal guriga ninkaaga walaalayaasay wax u socdeen fiiriya intaa maxaa laga cararayaa gabadha noocaasis arooskeeda qiimo ma laha miya faajirada maanta looga tumo oo kalaabyada iyo fanaaniinta taasaa qiimiye wanaag leh miya gabadha taabiciyadda ah cilmiga aabeed xambaarsan khayrkii wanaagga leh mar allaala markii gabadha soo dhaqaaqday waxaan ka ceshooday buu yidhi muufadii saliid inay aragto faynuustaa ka dhaqaajiye marka hore say mugdi u noqoto waa soo cararay wixii baa dhinac u bixiyey xaaladahaas wax loo samayn jiro walaalayaal niyad baa idinka maqan iyo iimaan xaqiiqda marka laysku sheego wax kasta waad haysataan wax lagu guursadana waad haysataan sidaa darteed niyad bir ah lala yimaado manhirooli baa naag lagu dhaqi karaa qaar baa yidhaahdaa xaggee lagu dhaqaa hal lagu dhaqi kari xaggee la tegaa marka walaalayaal sidaa darteed dadka muslimiinta ah khaasatan dhallinyarada gabdhaha waxay sugayaan waa idinka gabdhaha waxay guurka ka rabaan waa idinka waxa laga rabo xilkas inay noqdaan waa idinka waxa la rabo inay soo xamaalaan waa idinka waxa la rabo inay wax soo kasbaan waa idinka idinkana ha ismoogsiinine intaad ilaahay talada u dhiibataan khayrkii wanaagga ku dadaala haddaan sidaa la yeelin walaalayaal waqti baa dhumaaya waqtiga waa sii socdaa gabdhaha haddii ay 20 sano ama 18 iyo 25 meelaha ay ku guursan waayaan maxaa la gelayaa 30 soo maaha maxaa la sii gelayaa 40 maxaa dhimanoo kale goormee guurkii nadiifkii xalaasha ay macaankaa la helayaa sidaa darteed dumarkana waqti ha ka dhuminina in yar oo rabbi idin siiyaa idinku filnaanaya iimaan raasiqa la imaada daacad dhaba la imaada rabbi subxaana wa tacaala ku kalsoonaada khayrka iyo wanaagga ku dadaala faaxishadaa yaraanaysee meel ististaagaad yaraanaya xumaatadii waxyaabaha jira way yaraanayaan mar allaala markuu guurku bato markuu guurku bato khayrka iyo wanaaggaasaa la gaarayaa sidaa darteed caqabadaadka guurka dhallinyarada intaa markaan uga baxna caqabaadka guurka hortaagan waxa ugu weyn waa waxaan hadda tilmaannay waa iimaan la'aan waa qofkoon ilaahay ku kalsoonayn subxaana wa tacaala maxaan siinayaa meeqa sanaa jirtaa wax ku siin jiray meeqay jirtaa ayaase ku qiyaasa qoodin jiray ma waxaad iska dhigaysaa sidii wax adiga risqi gacanta ku haya ma waxaad iska dhigaysaa gabadha risqiidana gacanta ku hayso wixii alla kuu soo dhiibaad siinaysaa wixii ilaahay kuu soo dhiibay daacad ahow dadaalna samee waxaad soo heshana ha ka qarsanin gabadha masaakiinta ah wax allaala waxaad soo heshay wax uga iibi waxa dhibaatadana saaran waa is-aaminitaan la'aan waa qiyaamo asagiina waa khaa'in ayadiina markii aragtay inuu khaa'ibay khaa'inad noqotay suu u socdaa loola socday sidaa marka waa in layska daayaa waa in ilaahay laga baqaa subxaana wa tacaala ninkii dhahay maxaan ku guursadaa maxaan haystaa maalinta dambe waxaad maqlaysaa $14,000 baa lagu qaaday shalay wuxuu lahaa maxaan ku guursadaa ani xaggee ka keentay hadda sidaa darteed walaalayaalo waxbaa ka ahmiyeysan waxbaa ka awliyeysan qofka muslimka ah diintiisa ilaalsanaanteedu waa guurka
qofka muslimkaa waxuu ku ilaalsanaan kara waa guurka. saa darteed qodobka ugu horeeya eena loogaga baahan yahay waa inaan iimaan iyo casiime iyo go'aan iyo tala saarasho alleh oo adag aan la nimaadaa. waa midda koowaad. haddaan taa lala imaanin xeran buu qofku ahaanaya. midda labaad, caqabadaadka guurkeenna hortaagan ka mid ah in badan aan saarna dumarka gardarradee waa meherkoo qaali ah. meherka faraha badan dhallinyarada way ka sheegteen walaalayaal. sidaa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam inkastoo gabadha muslimadda ah wax allaala wixii ay doontay meher ka dhigan karto, haddana wuxuu ammaanay meherka yar. meherka aysarkee khafiifkee ugu fudud waa meherka ugu barakada badan. gabdhihii daxyar lagu guuriyey ilaahay baa baraka ku daray subxaana wa tacaala. kuwii faanba ha ka ahaatee intaas waa iyo dollara. intaaba nahay xaaladeeda. maxaan dollarka la qiinay markii hore? waxara iyo geel iyo lo'baa laysku mehrin jiray. sidaa darteed baa mar allaala markii maanta meesha la yimid xaaladaana ay saa u badatay, dhallinyaradii gadaal bay u kaceen. ilaan gabadhii afka loo kala qaadee lala hadlaba meherka ugu horeeya wuxuusan awoodi karin. maxaa ku xiga? xafladii la dhigi lahaa. maxaa ku xiga? gabadhii saaxiibadeeda meeshii looga dhigay oo kale doonaysa haddana taaj edab darro la yidhaahdo oo gabdhaha la saaro aysan socon karin. 3 gabdhoodna kor bay inta uga soo qaadaan, 3na intay kor uga qaadaan marka la gelbinayo. saa darteed baba loo cabsi qabaaba inay kusto. mashaakil noocaasna waa yaalaa, meeqaa lagu kireeyaa. xaaladahaasoo dhan waa dhibaatooyinkii caqabadaadka guurka hortaagan. taa waxaa ka mas-uula gabdhaha. waa laydiin ogol yahay. ilaahay subxaana wa tacaala idinkuma ciriirinin. meherka idinkaa iskale. xeer ma galo, tol ma galo, oday ma sheegi karo, kaaba qabiilka ma hadli karo. inanta ayadaa ka hadli karta. gabadha iyo wiilkuu ka dhaxeeyaa. laakiin waxa kale waxkeen iyo waxaan adeer hala siiya iyo waa mawduuc kale. laakiin haddii meher yimaado naa'aamus waad maqlaysaa maanta. naa'aamus way soo heshiiyeen. $300 bay ku soo heshiiyeen. maxaa tiri ma 300? ma gabdhayna 300 lagu meheriyaa? aamus baa taala. aamus ma aha. hadday malaayiin sheegatana ayadaa leh, hadday kun sheegatana ayadaa leh, kow hadday sheegatana ayadaa leh. waa jasadkeeda meesha ugu sharafta badan waa waxay ku banaysanaysa walaalayaal. sidaa darteed ha lala gorgortamina. waxaan la hadlayaa odayaasha, waxaan la hadlayaa waalidiinta. bacdamay sidaa tahay meherka gabdhaha iskale, ayaga waa laga codsan karaa walaalay wax iga dhin. in badanna islaamku wuxuu aad u ammaanay meherka aad u yar. meherka maanta ay sheegtaan waa waxa kambani lagu furo. koox shirka ah markay isu yimaadaan waxay isku dardaraanay shirkad ku furtaan bay keligeed meel u sheegataa maanta. xaaladda noocaasaa la maraya. shirkad ma aha walaalayaal. meeshani waa inaad cafaaf hesho, waa inaad dhowrsanaan heshaa, waa in ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga ku waafajiyaa. taasaa markaa lagu dadaalaa. gabar baa nebiga u timid sala allahu calayh wasalam. waxay ti rasuulka allow laftaydii baan ku hibeeyey. intuu saa u firiyo madaxa ka luxluxay. nin baa dhaa yaa rasuul allah haddaadan dankalayn ii guuri aniga. waa lagu kala tartamayaa. aniga igu dar. muxuu meelku og yahay ninkaa? muxuu meelku og yahay? adaaba 345 lagu soo diraaye. markaasuu dhahay rasuulka alla maxaad haysataa? waxba ma haysto. bax ee wax soo raaraagi. waa baxay, waa la sugaayey, waa soo laabtay. rasuulka alla ma soo helin, wax ma soo helin. haye orod wax soo raagi. walow khaati min xadiid. waa faraati bir ah. faraati dahaba ma aha, faraati fida ma aha. waa khaatim walaalayaal, xadiid waaye bir. xataa keen gabadha la siiye khaatimkii xadiidkuusa waayay. guurkiina waa raba, guurkiina waa rabaa. gabadha inuu gacanta ku dhigana waa rabaa. faraati birana ma hayo waxuu ku bixiyo. yaa rasuul allah haadaa izaari. macbuudtaa ma haystaa buu yidhi. go'a ma haystaa. war maxay ku falaysaa go'a? haddii ayada la siiyana adaa ka dharla. haddii adiga lagu siiyana wax ma haysata gabadhii. wuu iska fadhiistay. intuu dadaali kara waa dadaala. intaad dadaali kartaan dadaala. tabari meesha idi dhigta waa gooni. laakiin meeshaasaad fadhisaa. shukaasina dhaafi maysid, xumaanna dhaafi maysid, gabdha fiifiisna dhaafi maysid, mana gursanaysid. xaggee u socotaa marka? wuu iska fadhiistay ninkii ilaa majliskii ku dheeraaday. rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi kaalay, maada macaka min alqur'aan? war qur'aan ma taqaanaa? maxaa qur'aan ah oo aad taqaanaa? nacam, waxaan aqaanaa buu dhahay suurat albaqara walatii taliiha. baqariya ala cimraan 286 aayado. soomaa baqarat
aala cimraan waa 200 aaya isku dar dusha ma ka taqaana oo dusha ma ka aqrin kartaa haa yaa rasuul allah waa baqari aala cimraan meeqa macallin baa nagu dhex jirtaa haddii la waraysto hadda wax gursaday malaha ilaa wax yar maahane 14 iyo boqolka suuradda qalbiga ku haya suuratulbaqara iyo midda ku xigtaan aqaanaa buu yidhi riwaayadaha qaar waxay leeyihiin in allaala intaas taqaano qur'aan baan kugula mehriyey qaar baa waxay dhaheen 20 aayadood bar inanta rasuulka sallallahu alayhi wasallam meher baa looga dhigay baraka ilaahay dhex yeelay niyadaa fiican xasaab buu rabaa mawsanaan buu rabaa adigana waxaad ku welgaartad rabtaa inta jiidaa kaaga soo baxaya marka islaama laha wuxuu waxyaabaha ilaahay uu noo dhibaatooyinkii waxyaabaha ay noogu dhacayaan qof kasta danqaasu wataa wax ilaahay dartiya maaha subxaana wa tacaala wallaahi hadday alle darti aan lahayd gabdhahaasoo dhan way asturnaan lahaayeen idinkoo dhanna cafaafi dhowrsanaan baa la heli lahaa waa in niyadda laysku furaa niyaddana la hagaajiyaa rabbina laga baqaa dumarkaas ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala idan meerka xaaladiisu waa sidaa caqabaadkuu ka mid yahay waa rajayn doona hadday muxaadaradu dhammaato in wax badan laga bedeli doono gabdhuhuna inay maqlayaan aad iyo aad baan u rajaynayaa meheradaas aad qaadinaysaan walaalayaal dhibaatuu idiin yahay 30 bay ku tallaabsatay 35 bay maraysaa 40 bay usii dhowdahay weli lama guursanin nin la'aanna maa habeen kastaa loo yimaadaa laakiin maxaa keenoo kalifay mar allaala markay afka kala furto iyo madaxa gacanta saartaa waxa la sheegay markaasuu meesha ka cararaya waa dhibaato aad iyo aad u weyn ta kale ee caqabaadka guurka ah ee hortaagan waa qabyaalada walaalayaal qabiilku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu dhibaatada badan wiil iyo gabar isdoona oo alla dartii isku doonaa qabiil isugu diidaa waxa casabiyadda ah ee jaahilnimadii iyo wixii hore in laga baxo waa shay muhiim ah cabdiraxmaan ibni cawf walaashiisa ayuu qabay bilaal ibni rawaaxa zayd ninka lagu magacaabo zaynaba binti jaxshi waa qurayshiyeed walaalayaal zayd waa addoon la xoreeyey waa nebiga ina eedadii sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu walaalkeed u diiday inuu ku mehriyo wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri baa lagu soo dejiyey waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina waa ujeedaa sida lala hadlay rasuulkii allah waa ogolaaday kaalay buu yidhi asagoo ku xihay walaalayaal soo aftirsaa lagu leeyaha maanta soo aftirso waxyeel allah isma guursano ma dadkaasaa tihiin xaaladiina masaamba arrinta hadda ka hor baa dhibaato noocaasa dhacdo nin ciddiina intaan gabartiinu xumeeyey ee maxaa iga jira hadduu xumeeyey anima xumaynaya waa maya saa darteed walaalayaal aan ogaano yaa ayuha annaas إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن تعارف سميس وإن ضدك كأقوى ستضدك كإرير الله إن أكرمكم عند الله يتقاكم منك إذن كبت تقوى بضا منك إذن كبت في عن إذن كبت كرامة بضا الأكتيسة وكان إذن كعبس بضا بضاهي إلهي سبحانه وتعالى رسولكم محوجر هدو إذن يمادو من دين تيسا iyo dabeecadiisa aad la dhacdaan u guuriyo gabdhihii nasiya labadaa u fiiriya labadii maxaa bedelay qabiil iyo lacag labadii maxaa bedelay cadibad iyo doolar labadii maxaa bedelay waxyaaba noocaas oo kale ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay wax lagu qiimeeyo walaalayaal diin ha noqoto wax lagu qiimeynaya waa in alla ka cabsigu ahaadaa waa in xaaladda noocaasa la ogaadaa dadka ahludiinka ah ee diinka yaqiinay gobolka mid ah yaa laga yaaba inay arrintaa ka suurowdo iska daa caamadiya dadkii culimmada ahaa gobolka mid ah ayaa laga yaabaa arrintaa inay ka suurowdo iska daa caamadiya dadkii qur'aanka aqrinaaye ummadda wacdinaaye gobolka mida laga yaabaa in laga helo walaalayaal wamaa ubari'u nafsii ina nafsa la amaaratun bisuu sidaa darteed qof kasta oo muslim ah dhaga wax lagu maqlana leh waa inuu qodobkaa iska ilaaliyaa diin ma leeyahay dabeecad ma leeyahay wax ma dhaqi karaa beri hadday isqabtaan war makaa maqli karaa oo ma celin kartaa diin lama leeyahay oo salaad la'aan miyuu ku joogayaa guriga xaaladda noocaasa ha loo fiiriyo taasaa khayrkii wanaaggu ku jiraa
taasaa rabbi agtiisa cizii karaamo looga gaarayaa. shiiqa kitaabka akrinaya ma rabtaa iimaankiisa inaad ogaato, adoo tolkiisa aanayn gabarhtiisaa doono, markaasaad ogaanaysaay. naagtaada ma rabtaa iimaankeeda inaad ogaato, minyaro la qaado markaasaad ogaanaysaa heerkay xaaladdu tahay. marka xaaladaha noocaasoo dhan waxaa qofku khayr iyo wanaag ku gaaraa waxay tahay waa marka ilaahay aayaadkiisa lagu dhaqmo. waa diinta ilaahay walaalayaal, qabyaalad qiime ay leedahay ma laha, wax dadka lagu qadariyaa ma aha. labadaa qofood ee aad qabiilka isugu diidayso maqaayad bay ka wada casheeyaan, ka waran dhibaatada noocaas. labadaa qofoodaad isku diidayso iskuulka markay iskala soo baxeen meelahay soo mareen maxaad ka ogtaa, halkaabaad fadhisaa, maya ku siin maayo, maya ku siin maayo, maya saasaa tahay. adiga xaaladda maxaa fara kugu jira marka hore? waa in xaaladdaa la ogaadaa. marka qabiilka oo laysku qadariyo waxay ka dhalataa ama keentaa caqabaadka guurka, mashaakilaadka faraha badan, dhibaatooyinka adag. caqabaadka guurka waxaa kaloo ka mid ah sida dadka gobol ka mida ay ka dhawaajiyeen ama ay tilmaameen waalidka iyo dadka ayagu mas-uulka gabadha ka ah. xaaladaha noocaasa lug bay ku yeeshaan mararka gobol ka mid ah, mar kastaa ma aha, laakiin mararka KBU 938B from the Shakara. waalidku in badan rasuulku wuu la hadlay sal alla alayh wasalam, ilaahayna wuu la hadlay. ilaahay wuu la hadlo wuxuu yidhi waankixu alayaama minkum, isku duuriya. ayagaaba la rabay inay istaagaan oo ay gabadhii wax u raadiyaan oo wax noocaas ay sameeyaan. waankixu alayaama minkum wasaalixiin. cumar ibn khataab gabadh 18 jir oo 20 jir u dhow yaa ninkeedii laga dilay. waa gabarh asaga uu dhalay, garoob bay noqotay, waa soo baxay. cismaan ibnu cafaan buu u yimid. cismaanoo xabsaa garoob noqotay ma kugu daraa? raashin uu siimiyu waayo cumar radia allahu tacaala canhu. maya wallahi. waa soo baxay ma kugu daraa? maya. aan ka soo fiirsada buu yidhi. muddo kadib intuu u yimid buu yidhi guur inaan guursado diyaarku ma ahi. abubakar buu u tegay. abubakaroo ma kugu daraa gabadhaydii? wuu iga aamusay buu yidhi. wallahi cismaan ba abubakar baa iga darnaa. kan wuxuu yidhi mada rabiye kana iga darno iga aamusay. hadal iima soo celin, jawaab iima soo celinin. cabbaar markii la joogaa nebiga ii soo doontay sala allahu calayhi wasalam. sacaaduu la raadinaya gabadhiisa. muxuu ilaahay kugu abaalmariyey? khayru khalqillah inuu guursado rasuulka sal allahu calayh wasalam. cismaan, cali, abubakar meelahaasuu ka reedaya. khayr buu raadinaya, ilaah baa waafajinaya subxaana wa tacaala. haddaad khayr raadisaan allah idin waafajinaya, haquusanina walaalayaa. nebi moxamed muxuu yidhi? nebi moxamed mar allaala markii cismaan uu u tegey, cismaanna waxaad ku dartaa gabadh xabsa ka khayr badan. waa umu kaltuum, waa gabadha nebiga sal alla alayh wasalam. cismaanna xabsan waxaad ku dartaa nin cismaan ka khayr badan, waa rasuulka sal alla alayh wasalam. abubakar markaasuu ii yimid, wuu yidhi cumarow raalli ahow, waxaan u malaynaa iga xanaaqday markaad gabadhaada ii bandhigtoon jawaabta ku siin waaye. haa maxaan kuga xanaaqi waayo buu yidhi. nin dhan gabadhayda ku garaamiyey dhahay ku siinaaye. nebi moxamed oo hadal haayaan maqlaaya buu yidhi. nebi moxamed oo dhahay anaa guursan doona xabsa ayaan maqlaayey. sidaa darteed ayaa waxaan diidaayey sirta nebiga inaan bannaanka keena sala allahu calayh wasalam. wallaahi hadduu nebi moxamed ka tegi lahaa ama dhaafi lahaa waan guursan lahaa. ujeedaa garoob kasta waa la asturi jiray. gabadhii waa asturi la-dihiin. garoob kastaa la asturi jiray. way u kala tartami jireen walaalayaal. ilaahay bay uga baqi jireen. umu salama markay dhimatay meeqa rijaalaa u timid, markay asaayda ka degtay meeqaa u timid. abubakar baa u yimido, cumar baa u yimido, hebel baa u yimido, hebel baa u yimido, dhammaan way rasiday. nebi moxamed baa u yimid sal allahu calayh wasalam. yaa rasuula iska kaydaa, islaan da-daan ahay bay tiri, waan maseer badanahay. waxay kaloo tilmaantay inay carruur leedahay. intaba waa xaliyey sala allahu calayh wasalam. intaba waa la xaliyey. umu xabiiba zawjkeeda xabashu ku dhintay, keligeeday meesha ku noqotay, keligeeday amul ku noqotay, madiina laga og yahay.
nebi maxamed baa akhbaar u diray sala allahu calayh wasalam oo loo soo mehriyey najaashi buu wakiil ka dhigtay waa la socotaan walaalayaal kuwii bannaanka iska badaaye shanta idinku meeraysan yaa tabarulahi bihi qaas dhallinyaroy ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala xaaladda waalidku aad iyo aad bay u dhib badan tahay mashaakil adag haddii aysan u hoggaansamin amarka alle subxaana wa tacaala dhallinyaro badan baa cawanaysaa waan doontay waa la ii soo diiday yaa kuu diiday aabe yaa kuu diiday hooyo yaa kuu diiday adeer waqti wax laisku diidaa lama joogo xilli baa laguu diidi karaa haddaadan wax dhaqan karin yaa gabadhiis ku siisanaya haddaadan diin lahayn waa laguu diidan karaa haddaadan akhlaaq lahayn waa laguu diidi karaa sidaa darteed baa waxaa la rabaa in raggu ay hagaagaan markaad nin fiican tahay oo toosan oo adaab leh oo akhlaaq leh oo rabbigii subxaana wa tacaala ka baqaaya waalidka aad niyad fiican ku hortagto yaa kuu jiilahay dhalinyada gobolka mid ah waxay ku socdaan qaab aan wanaagsanayn waxay rabaan in gabdho intaas la soo koriyo iskuul la soo asoo waxban haysanin akhlaaq fiicanna aan lahayn shicaar islaamina aan ka muuqin gabadhin la siiyo yaa ku siinaya saasay jeegada ugu jaran tahay jeegadayasaa ugu jaran mar allaala markuu aabbu arkaa buu ka cuuda bilaysanaya nin noocaas baa la siinayaa marka gabar marka waa in shicaar islaamiya kaa muuqdaa waa in ahlu diin aad ahaataa waa in khayr iyo wanaag iyo diin aad ku socotaa waa in awaamirta ilaahay aad fulisaa waa inaad noqoto xataa qofka markuu noocaas soo yahay inta badan looma fiiriyo xoolaha inta badan waxaad dhici karta aabuu inuu kabo inta badan waa suuragal marka walaalayaalo yaanan isku darsanin xoolo la'aan iyo akhlaaq xumo iyo diin xumo waa dhibaato aad iyo aad u weyn waa dhibaatada midda ugu daran rasuulka sal alla alay wasalam waalidka waa ula hadlay wuxuuna kula hadlay aayadda wuxuu kaloo kula hadlay ilaa subxaana wa tacaala nebigiisa ee uu yidhi haddiiba idiin yimaado nin diin leh dabeecadna leh diinta keligeed waa lagu kaaftoomi waaye 4 iyo 100 yaqaano wuu fasiri karaa axaadiista wax badan buu ka yaqaanaa inuusan akhlaaq lahayn baa dhici karta assalaamu calaykum markay gabadhu dhahdo ama qadada ka daahiso dhibaato weyn maalintaana guriga lagu hooyanba akhlaaq baa loo baahan yahay walaalayaal edeb baa loo baahan yahay waa laysku dhici karaa akhlaaq wax ku xalli mashaakil baa imaan kara arrinta waxay gabar dhan baa waxaa lagu furayaa caanay daadisay ka warrama walaalayaal caanay daadisay ninka noocaas waa nin xaafid ah waa nin qur'aanka yaqaana waa nin diinka iyo sidaa darteed ilaahay nebigiisa wuu ku kaaftoomi waaye diin keligeed idaa jaa'akum man tardaw hadduu idin yimaado qof aad la dhacdaan oo idin qanciyo diinkiisa iyo dabeecadiisa buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam akhlaaqdu waa wax weyn akhlaaqdu waa wax aad iyo aad u muhiim ah nin akhlaaq fiican laakiin diintu ay ku yar tahay inuu gabadha qabaa laga yaabaa laakiin nin diin badan yaqaana akhlaaqna aan lahayn si wax ku dhaqo way adag tahay suu wax ku dhaqo aadaad bay u dhibaato badan tahay idan waalidiinta in badan waxaan kula dardaarmi lahaa oo aan kula hadli lahaa oo aan u soo jeedin lahaa waxa diidmada la yidhaahdo mar bay idin dhow tahay idinna fiican tahay laakiin mararka gobol ka mid ah waxyaabaha aad wax ku diidaysaan ka fiirsada waxyaabaha wax lagu diido waxyaabo aan ahayn ha samaynina rasuulku wuxuu yidhi haddaad saas yeeli weysaan adduunkoo dhan fitna iyo fasaad baa camimi doona fasaad baa imaan doona maxay dhalinyadu la cararaan gabdhaha marka gobol ka mid ah maxaa kelifa inay dhibaato fara badan timaado maxaa kelifa gabar caadan la mehriyey habeen dambe inay dhasho walaalaya maxaa kalifay gabar uur qabta in la mehriyo waxyaabaha ka socda magaalada iyo adduunkaba darajadiisa markaas fiirsaa waa la tacajubaysaa soo fasaadkii nabiga tilmaamay maa sal alla alay wasalam gabar inta la gelbiyey habeen tagaasii laisdaba dhigay woonka saa u yeerinaya waa markii dambe ninkii gabadha arooska waday waxaa lagu aban isbitaalka ku leexiyo fool baa qabatay waxa dhaha bal waayahe foolaaba qabatayba waxaa loo sii wadaa waxo fasaadka la tilmaamayo laga cararayo walaalayaal kaas waa waalidiinay in badan ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala gabdhihiina rabbi uga cabsada laydinma diidana meel aan fiicnayn inaad u diidaan oo waad u diidi kartaan laakiin qof allaala qofkaad aragtaan inuu wax dhaqanaayo inuu caqli leeyahay inay waxoogaa u haysto ha u diidina faadima binti qays baa ka degtay asaayidi rasuulkaa dhahay ma dhaca aan dhahe ciddadii markaad ku ekay kuu dhammaatay soo ogeysii buu yidhi nebiga markay u timid beyti rasuulka allow ciddadiina way iga go'day abujahmina waa isoo doontay mucaawiya bin abi sufyaan wuu isoo doontay maxaan sameeyaa labadaba ha guursan buu dhahay sal alla alay wasalam labadaba dhaaf
ninka lagu magacaabo Mucaawiya Sucluuk lacag ma haysto wax ma haysto teeda kale markaad intaad aabbo hortagto xaqqa caqli baa loo baahan dhalinyare wuxuu ku leeyahay waxaan haysto bal gabadhaadan isii وحناقيا أبيه هذا الباجر الله هذا حرب الإنسان ما من خبرة قوية طليان بدن كود وحيابا لصميا أريموين بالماريا أريموين بالسكيكينا ما عاد يستا شير المهجو إلهي بايري إن الله هو الرزاق بريش لساقتها إلهي وايري لكن رسول كثير صلى الله عليه وسلم من كان السعلوك وما يستو ما عاد يستا تنظر بان يستا وح معقول شم بقل بان يستا لعبا بقلنا قولة دهر الله وقال هل قصد إذا أرقني gurigayga waa diyaarde hal lagu soo diiday su'luug waa ninka lacag ma haysto ilaahay baa yiri an tabtagu bi amwalikum inaad xulina ku dalbataan 20 sano iyo 30 sano la soo koriyay wax barasho ahooya caana suuqa ku geli jirta wax lagu soo baray hadaad ka xadda ka waran hadaad wax kale ka samaysa ka waran hatta waxunka ka farxi wax hadaad yeesan hada macaan baa loo baahay hada macaan alladhi kama haysto jaafi ala alladhi kama haysto wax laysa ku dheedayaa jirida marka saadada ilaahay سبحانه وتعالى الله ربقه خير ولكن أنا لو بدلاله مركا والدك رسولك صلى الله عليه وسلم حالتها سقط المامي قبلنا وحكيري كاتساوى يا ظهري وعظهر يا وجهم وصفر بديه قال قفر سرتي حديثك قال واحد وناقصهم بديه دمر كان مجعل لما كان قراعه سادر تبا وحيري كانها جلسن واحد جلسة أسامي بن زيد والأضامات وهذه الكريم ما جعل الثانين لكن أمرك النبي ما قاطي إله با خير ضرب يقعد سبحانه وتعالى أمرك إله تان قادني كالنبي أدبى لوبر وقوبيا خير وناك نواه وهلهليا بل يا رب وعنده لا إله يجر وعصر عزمي عزيمي قرآن لا إمارة أسبابنا لا إمارة انت وحي كدام بيقبل الهلسان إن شاء الله تعالى قبلوا عنده لها $5 بقضي $7 $20 كسلو دقو وحوغاب بالميل في عن إذن كنا إمارة إن شاء الله وحبرا بندعين دونا إنو فرينكو إذن كو يرابو حالبا نتلمانو وحي إلا هاي تيري أما قبلوا إليه بالمركو يفرو أيان سوقكو قلي دونا وانا رنتد مركب تيرسو مركب الله مركب شو وهذا أنا إيقاتك قرقي نيسانكو نقول كنا هذه كوسو قضي والدكي شري يركها قرسنين دبتا إيقصو راعضي فإنتي أميركي أوكسو وريقتا لقصو راعضي شري كيري قد بأهي من دبركي كوضع من عواشو كجرا من نقعنتي كوضع قرقي دي بي كل عوصي ويوبا أنت وحسوهم كشو الله إن لقا قاروا مضنطا مركا بعدما صاطيتهاي إذن كينا إلى سبحانه وتعالى وغبقى قبله قبضها أن إنبنا الرب سبحانه وتعالى هكا عبد صبارانو خير فرب بضب هو نكسنها لبدلاله لباسط بضب أو بضب باطالة مشاكل فرب بضب بايالة قرقي مركا لسوقتها ويلكي مركو قعن مرناضة دهبتو قبضة أقذي ودورالي يقضوا سوق يجي أنكو